أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أخياري كلنتو وناكسن سود هذا مانتا يا مركلة يا برنامج كان وكمل برنامج دي تعالى هاي اللي يرادو محاذن هوين ولا غريي مانتا إن شاء الله تعالى وحنا ننتس دونا ندول هذه رؤية تفسيرك سورة التضباط سورة الأعراف آية بقول لحين التضباط waxay ku saabsan tahay iyo hadduu ilaahay yidhaahdo maadaama alla ka hadlayo dadkii reer bani israa'iil ahaa ee lagu fidnayo ummad kale oo dhibaato u geysan doonto ilaa yowm alqiyaamaha waxaan idin tusi doonaa ummaddaasi waxay tahay intaynaan tafsiirka gelin waxaad ogtihiin maaragtay weerar argagixisa ayaa ka dhacay xeeb ka mid a xeebaha dalka australia ee la yidhaahdo bondi beach loo akriyo macnaha ama bondi labadaba waa la yidhaahdaa waxaa la yidhi macnaha falis falaag bay ahayd zaaniistaha ayaa sameeyey marka waxaan tusi doonaa aayaddaas dadkay ka hadlaysaa inay zaaniistaha yihiin hadduu ilaahay yidhaahdo kolka casharkan waynu kusoo noqon doonaa marka hore aayadda aan idin fasiro aayadahani waxay ka warramayaan reer bani israa'iil maaragtay hadduu ilaahay idin rooya caasinimada ay sameeyaan iyo markaa la yidhi masaajidkii badiqudsi macnaha magaaladii gala oo la yidhi sujuud ku gala oo ay maaragtay dhabar u galeen macnaha ciqaabiya ku dhacday asxaab sabtigii la yidhi maalinka sabtiga ha kallumaysanina waxaasoo dhan kadib ayaa alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala acuudu billaahi min ashaydaani arajiim waid ta'dana markii xusuuso markii ta'dana rabbuka markuu rabbiga ogeysiintaas oo macnaha la ogeysiinayo waa kuwii yuhuudka noqday ee reer bani israa'iil waa kuwii reer bani israa'iilka runta ahaa ee ilmo yacquub ahaa ee yuhuudda noqday weeye ayaa la wuxuu leeyay subxaana wa tacaala xusuuso markii rabbigaa ogeysiiyey ama uu rabbigaa u sheegay iyadoo lagu yidhi layabcasanna waxaan ku soo saari doonnaa calayhim iyaga korkooda iyaga ayaa waxaa lagu soo saari doonaa ummaddaasoo ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinka yowm alqiyaamaha laga gaarayo man yasuu'uhum oo ay ka mid yihiin kuwa tusi doona ama ku qaban doona oo u geysan doona suu'a alcadaabi cadaab xun oo adag ummad u geysan doonta ayaa lagu soo saari doonaa baa layidhi kadib alla wuxu yidhi subxana wa tacaala ina rabbaka rabbigaa la sariicu lciqaabi waa kay ciqaabtiisu soo degdegto ee ay hufan tahay sidoo kalena rabbalcaalamiin wa inahu wuxuu kaluu yahay rabbigaa lakafuurun raxiim allah dembi dhaafaha badan ee raxmadda gaarkaana leh marka dadkan waan garanay waa reer bani israa'iil maaragtay soomaaliga haddaan tagnana fasirka waa kan waxaa la yidhi xusuusta markuu eebe ogeysiiyey inuu u soo bixinayo macnaha inuu usoo bixinayo yuhuud tan iyo qiyaamaha cid dhadhansiisa cadaab xun eebbahaana ciqaabtiisu way degdegtaa waana dembi dhaafe naxariis badan ama dembi dhaafe naxariista taas waa soomaaliga marka tafsiirkii waa kan marka reer bani israa'iil waa ayo ummadda ilaahay subxaana wa tacaala ilaa yowma alqiyaamaha uu ku soo bixin doono ee aysan sinaba iskaga furfuri doonin ee tusi doona ciqaab xun maaragtay ku samayn doona baabi'in doona xasuuqi doona halaagi doona dadkaas wacayo dadkaas taariikhda ayay ku jirtaa laakiin culimmadeenna ma ka maqlaysid macnaha dadkay yihiin laakiin waxaan tusayaa maanta dadkaasi dadkay yihiin iyo dadka lagu ciqaabay ee lagu fidneeyey dib haddaan u noqonno 600 sano ka hor nebi ciise calayhi salaam intuuna dhalan nebi suleymaan geeridiisii kadib waa kii reer bani israa'iil hadduu ilaahay kuu roon yahay alla kala firdhiyey oo uu dhulka ku firdhiyey oo uu kala caydhiyey oo hadduu ilaahay kuu roon yahay afarta gees macnaha adduunyada maaragtay lagu kala firdhiyey oo adduunka lagu daadiyey taasna waxaa muujinaysaa aayaddii haddaan soo akhrinay aayadda ka dambaysa oo ah aayadda 168 ee suurat alacraaf ayaa alla wuxu yidhi subxana wa tacala acuudu billahi min shaytaan rajiim waqadacnaahum waxaan ku googoynay waqadacnaa waxaan ku googoynay hum iyaga waa bani israa'iilkii yuhuudda noqday fil ardi dhulka dhexdiisa ayaa lagu firdhiyey oo lagu googooyey umaman iyagoo ummada
iyagoo ummada ayaa dhulka saa lagu daadiyey macnaha lagu firdhiyey alla wuxuu subxaana watacaala minhum asaalixiina kuwaa dhulka lagu firdhiyey ee bani israa'iilka yuhuudda noqday waxaa ka mid a minhum asaalixiina saalixuuna kuwa saalixiina ayaa ka mid a sidoo kale alla wuxuu subxaana watacaala waxaa kaloo ka mid a wa minhum duuna dalika kuwaan kuwa ahayn waa gaalada kuwa noqday ee yuhuudda noqday alla wuxuu subxaana watacaala wabalownaahum waxaanan ku imtixaanay bilxasanaati wanaag baa lagu imtixaamay maal awlaad wax walbaa la siiyey sidoo kale waxaa lagu imtixaamay wasiyaati xumaan xasuuq dil gaajo macaluul abaar fakri muxuu allana waxa u sameeyaa imtixaankaas lacallahum yarjicuun waxay mudan yihiin inay alla soo noqdaan kolka reer bani israa'iilka oo ilaahay subxaana watacaala kusoo saaray ummaddaas waxa weeye saan idiin sheegay 600 oo sano ka hor maaragtay rasuulullaahi ciise markuu soo baxay ka hor nebi suleymaan saan idiin sheegay geeridiis kadib waa kii reer bani israa'iil dhulka lagu daadiyey marka maxaa dhacday qaybo badan oo iyaga ka mid ayaa waxay tageen dhulkii yajuuj iyo maajuuj oo dhulkan caucaska la yidhahdo markay tageen yajuuj iyo maajuuj ayay ku darsameen qabiiladii ah waxayna ka mid noqdeen boqortooyadan in badan idinka sheekeeya la yidhahdo khazaar boqortooyada khazaarka waxay ahayn dad turkiya iyo caddaana iyo indhayara oo isku jiray oo madaxdooduna ay tan guduudan leedahay nebiguna wuxuu yidhi xadiisku yidhi sallallahu alayhi wasallam yajuuj iyo maajuuj waxay ka kooban yihiin laba ummadood oo qaybna ay tin guduudan tahay ama tin cas tahay qaybta kalena ay indhayar tahay marka waxaasoo dhan bay ka koobnaayeen reer bani israa'iilka iyagay dhex galeen diintiina iyagaa u geeyey kitaabkii towreed keliya umay geyn waxay kale u geeyeen buug kaloo la yidhaahdo taalmad ama talmuud oo iyagu ciraaq u qoreen markii ay mustaafiriisku joogeen ama dhulkii loolan jiray babylon marka dadkaasi waa dadka ilaahay subxaana watacaala sheegayo inay bani israa'iilka yuhuudda noqday dhibi doonaan oo ciqaabi doonaan ilaa yowm alqiyaamaha hadduu ilaahay yidhaahdo maantana waxaan baran doonaa akhyaaray nin ka mida dadkaas bani israa'iilkii ciraaq degay ah oo kuwii runtaa weeya kuwan caddaanka ee diinta yuhuudda qaati maaha waa kuwii asalka ahaa waana kuwa ilaahay ka hadlayay subxaana watacaala maaragtay lagu ciqaabay ummad kale ilaa yowm alqiyaamaha ciqaabi doonto inuu lagu soo bixin doono marka halkaa tageen dhulkii yajuuj maajuuj ay ku darsameen haddee dhibkay ku bilaabeen ilaa maalinka ayay taagan tahay ilaa yowm alqiyaamaha ay ku socon doontaa kadibna boqortooyadii khasaari markii tataarkii ay jebiyeen qarnigii 13aad bilowgiisii yurub ay u qaxeen yurub markay u qaxeen waana kuwan la yidhaahdo maaragtay ashkenazi jews la yidhaahdo bariga yurub degan oo Poland iyo Lithuania iyo maaragtay Ruushka iyo Ukraine iyo dhulkaasoo dhan bariga yurub waa ka yimid iyo kuwa galbeedka yurub joogay waxaa dhan ashkenazi jews la yidhaahdo oo dadka caddaanka ah diinta iyadoo qaatay kadibna waa kuwii ingiriisku iyo faransiisku ay dhulkii barakaysnaa hoolilaanka ah ay khiyaar ku soo celiyeen 1917kii maaragtay 21 sano kadibna 1948 waa kuwa la baxay Israa'iiliga u shaqo kuma laha waa European waana kuwa ilaahay subxaana watacaala ku xukumay reer bani Israa'iil inay ciqaabaan ilaa yowm alqiyaamaha iyagaa doontay soo maaha waa lagu ciqaabay waa lagu fidneeyey marka macnaha dadkaas weeyaan waana Netanyahu dadku ka soo jeedo dhammaan ra'iisul wasaareyaasha waddanka Israa'iil la yiraahdo dhan dhammaantood kan Netanyahu ma ahan oo isagana aabihii uu Poland ku dhashay maahna dhammaantood waxay ku dhasheen qaaradda Yurub waa European soo maaragtay waana dadkii saan hore inuu sheegay casharadii hore iyo jiiji wajhu ka tirsanaan jiray oo iyaga lagu ciqaabay fiiri aayadan quraanka ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku muujinaya in lagu soo bixin doono la yubcathana calayhim in lagu soo bixin doono iyaga ilaa yawm alqiyaamati ilaa maalinka yawm alqiyaamaha laga gaarayo man yasuuhum qoftus doona ama ku samayn doona xumaan su'al cadaabi xumaan cadaab adaga ku samayn doona kolka kuwaas waa kuwa marka qayb yar oo kamid ah ayaan geli doonaa intayna qaybta gelin waxyaabaha ugu waaweyn ay ku sameeyaan waxa kamid ah macnaha dagaalkii labaad holocaust-iga waad ogtihiin European Yuhuudan ama Zionista la yiraahdo iyaga ayaa Zionista watay kuwii ugu horeeyay bilaabana waxa la sheegay inay ahaayeen kuwii la oran jiray Crusade-ka maaragtay taariikhdu markay ahayd 1999kii Baytul Quds qabsaday oo 100 sano kadib uu Allah naxariistay Salaahuddin al-Ayyubi ka saaray kuwaas aad ogaada Kristaan bay ahaayeen laakiin Ashkenaz bay ahaayeen waa isku ummad waxaan niyo qaybna Yuhuud bay noqotay qaybna maaragtay masiixnimada ku adkaysay ujeedadooda dhan ugu weyn waxay tahay inay meesha qabsadaan kolka waa kuwii macnaha saa u dhibay weeyaan markay reer Israa'iilka kuwa saa u dhibay sidoo kale Hitler maalqabeennadooda oo nimanka galbeedka maaliyadoodii dollarkii waxa dhan haysta ayaa keenay iyaga oo Hitler iyaga maalgeeyay ujeedada Hitler waxay ahayd maadaama dhulkii Falastiin boqortooyada Ingiriiska iyo Faransiiskii ay u qabteen
dad baa loo waayey marka maadaama dad loo waayey Hitler baa lagu maalgeliyey Hitler markii lagu maalgeliyey ujeedadu waxay ahayd in kooda diiday inuu Falastiin aado in la dilo sidii baana dhacday soo ma aragtaan in badan oo ka mid ah maaragtay hadduu la idin roon yahay dadka uu Hitler xasuuqay dee ama 6 milyan hal yiraahdo ama ka badan hal yiraahdo ama ka yar hal yiraahday macnaha waxa weeye badankoodu waxay ahaayeen bani Israa'iilka runta ahaa ee kuwan quraanka lagu sheegay in dadka lagu fidnayn doono Hitlerna awowgiis Yahuudi buu ahaa boqolkiiba boqol internetka ku jirta qofka doonaya inuu baaro cilmiga ee luqadda Ingiriiska yaqaana marka badankooda reer bani Israa'iilka waxay ahaayeen wadanka Spain la yiraahdo laga soo cayriyay markii ay dawladda Islaamka Andalusia dhacday maaragtay qarnigii 15aad bartamihiisii oo Yurub yimid oo la xasuuqay bay ahaayeen waana kuwii bani Israa'iilka ee Tawraad haystay waa inaad hada jeed fahantaan bani Israa'iilkii hore kitaabkii Tawraad bay haysteen ma ayna doonaynin dhulka inay ku noqdaan laakiin Yuhuudda gadaal ka timid Yurubiyaanka iyagu buug ay isticmaalaan waa Talmudkuna waa buug uun bilaadan sameeyey waana buuggii Allah subxaanahu wa ta'aala uu ku sheegay inuu yahay maaragtay kitaabu shaydaan ee suuratul baqara lagu sheegay weeyaan ee sixirka iyo balaayada watay marka ilaa maalinkaas waa la sheegay inay maaragtay in dhulka laga saaray oo la yiri subxaanahu wa ta'aala faqatacnaahum fil ardi umuma dhulka ayaan ku firdhinay oo ku daadinay oo loo qaybiyey ilaa yawm qiyaamaha dadkan Yaajuuj iyo Maajuujka ahaan jiray ayaa iyaga saa wax xasuuqi doona hadda waad aragtaan aayadda xaqnimadeeda kamana bixi karaan waayo iyagii baa qayb kamid noqday way isdhex galeen maaragtay wiili abtigii bay noqdeen gabar iyo adeerkeed bay noqdeen dee way isku milmeen laakiin weli haddii macnaha jiinkoodii way wataan inay bani Israa'iilka runta yihiin waana lagu ciqaabay waana lagu halaagay marka testimonial ama calaamado ayaan muujin doonaa waxaan tegaynaa website uu leeyahay ninkan la yiraahdo ninkan maaragtay Canadianka la yiraahdo Henry Macow halkaas aad ka aragtaan waxyaalo badan aad ka baran doontaan isagu muslim ma aha laakiin waa anti-Zionist weeye aniguna macnaha waxay anti-Zionist ama wax ka qaataa waxa media mainstream media wax la dhaho warbaahinta reer galbeedka sida BBC CNN kii kuwaas anigu weligii ma dhageysto akhyaari waxa weeye waxna kama soo qaato kolka nin bani Israa'iilkii Yuhuud ahaa ee Ciraaq joogay oo wadanka deganaa kun iyo maaragtay 200 sano ka hor diinteena Islaamka intaan soo bixin ama 2600 sano ayay communitygaas ama dadkaas deganaayeen wadanka Ciraaq la yiraahdo sheekadiisii ayaan fiirin doonaa marka ninkan wuxuu ku bilaabay wuxuu yiri weerarka argagixisnimo Zionist fals flag wuxuu yiri waxyaabaha inoo sheegay waxa kamid ah akhyaari ninka geystay weerarka argagixisay Australia geystay magaciisa waxa la yiraahdaa Nafid Ikram saad ka aragtaan wuxuu ahaa askari ka tirsan askarta ciidanka Yuhuudda oo ah dadkii qase ka soo dagaalamay oo isagu Australia dib ugu noqday marka waxa la yiri maaragtay markuu qase ka soo noqday kadib ayuu maaragtay he lost his mind macnaha uu wareeray kadibna 12 Yuhuud ayuu ku dilay Australia ninkaas askari Israa'iili buu ahaa ogaada waxa geystay soo maaragtaan waxa inuu ruwaadi yahay oo lagu fidneeyay marka qoraalkan waa Ingiriis laakiin maaragtay Soomaaliya ku turjumaya waa saas marka wuxuu yiri xeebta la yiraahdo Bondi Beach maaragtay israasaasintii xabadayntii ka dhacday wuxuu yiri waa xusuus muujinaysa Zionistu inay inta badan isticmaalaan fals flag wax la yiraahdo ama maaragtay weerar qorsheysan oo beena oo si manipulation lagu sameeyo ama loo jahwareeriyo oo loo xukumo dadka Yuhuudda marka sheekadii ayuu noo bilaabaya wuxuu yiri 1950yadii nin Yuhuudi Ciraaq ahaa waa ogaada Arab Jews ku leeyahay waa kuwii bani Israa'iilka runta ahaa oo la oran jiray Soomaaliga waa Naciim oo la oran jiray Naciim Galaadi ayaa wuxuu ogaaday campaign anti-Semitic ah ama dadka Yuhuudda ah lagula dagaalamayo oo sida qaraxyo qorsheysan iyo waxyaabo lamid ah in laga fuliyo wadanka Ciraaq isla markaana ay ka dambeeyeen oo mas'uuliyadda ilaahay Zionisti waa kuwan sanadii sheegay Eric Zionist marka soo maqashaan waxa ka mas'uula waa Yurubiyankii diinta Yuhuudda qaatay ee asalkooda Yaajuuj Maajuujka waana kuwa xumaanta ku hayn doona ilaa yawm qiyaamaha marka kan waxa la yiri waa lagu qiyaamay waa lagu siray waxa kale oo la siray macnaha Yuhuudda Ciraaq oo looga dhigay in carabtu nacabtahay oo bambaanay qarax maalin walba lagu hayay kadib isaguna uu rumeeyay baa la yiri arrintaas ogaada haday dhulka waxay deganaayeen 2600 sano ayay dhulka deganaayeen weligoodna carabta dhexdooda iyo dhulka muslimka ay joogeen xataa Soomaaliya xeebaha berberi degi jireen wixii ka horreeyay 19 sida berbero kale degi jireen wixii ka horreeyay 1948 wax dhiba muslimka kama qabin marka arrintaas uu rumeeyay baa la yiri kadibna wuxuu u guuray Israa'iil buu guuray oo ah meesha Zionist bankarisaan idin sheegay kuwa bankariska ayaa wadanka samaystay sida qoyska Roja la yiraahdo kale ay wadanka Israa'iil xaqiiqdii saad arki doontaan constitution
ama dastuur iyo xad midna ma lahan sababtana waan arki doonaa isla iyaga ayaa nooga jawaabi doona sababta u yeelan waaye marka waxaa la yidhi bankariska iyo kuwaas oo helay waddanka Israa'iil ah oo maaragtay oo naasiyiintana la shaqayn jiray ayaa iyagu meesha Israa'iil yiraahdo aasaasay ingiriiska iyo waxana iyagaa keenay marka wuxuu yidhi yuhuudda caadiga weli waxay macnaha daafacaan zaaniista ayay daafacaan iyaga oo isla markaana xasuuqa iyo dilku uu ku sii socdo marka qoraalkan waa caddayn muujinaya macnaha aayadda quraanka ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaa yawm waxaan kusoo saari doonaa dad xumayn doona oo cadaab xun tusi doona ilaa yawm alqiyaamaha marka sheekadii ayaa noo bilaabatay qisadii ninkan marka wuxuu yidhi 1950kii waxaa dhacday inay hirar badan ama antisemitic badani oo argixiso wata ay ka dhaceen waddanka Ciraaq taasoo ku qasabtay ninka la oran jiray Naim Giladi oo kulaas jir markaa ahaa inuu ku biiro jabhadii qarsooneyd ee zaaniista ahayd ogaada ninka waa la qiyaamay isagana ayaana noo sheegi doona qiyaamada sida u dhacday iyo sheekada la socda marka ninkaas waxaa dhacday waa la xiray kadib toorder baa lagu sameeyey ama jirdil iyo maaragtay tacdiye ayaa lagu sameeyey kadibna waxaa lagu xukumay dil dalka Ciraaq dowladda Ciraaq ee markaa jirta ayaa ku xukuntay kadibna waxaa dhacday waa uu ka baxsaday wuxuuna u orday oo u baxsaday xagga Israa'iil kadib markuu Israa'iil tagayna wuxuu ogaaday antisemitic iyo qaraxyadii lagu hayay yuhuudi carabta ahayd inay ka dambeeyeen oo ay geysan jireen kuwii zaanista ah ee saaxiibada ahaayeen oo isla markaana lagu khiyaamay yuhuudi Ciraaq sida isagoo kale si ay u tagaan Israa'iil soo maaragtan yacni qaraxyadii iyo dilkii iyo xarigii lagu hayay bir Israa'iilkii yuhuudi ahaa ee deganaa dhulalka carabta waxaa ka dambeysay dowladda Israa'iil ee zaanistaha Yurubiyaanka kadib ninkan qoyskiisa ayaa waxay ka mid ahaayeen buu yiri maaragtay community-gii yuhuudda ahaa ama dadkii yuhuudda ahaa ee waddanka Ciraaq la yiraahdo ama meesha Babylon la yiraahdo degay maaragtay 2600 oo sano ka hor buu yiri taasoo ahayd 600 ka hor nabi ciise waqtigiisii macnaha waqtiga masiixiyada taasoo kale iyo 200 oo sano ka hor diin islaamka kadib waxaa dhacday 1940 ayaa ra'iisul wasaare Ciraaq oo la oran jiray Nuuri Saciid ayaa waxaa dhacday waxa uu shaqadii ka cayriyay dhammaan shaqaalihii yuhuudda ah ee dowladda Ciraaq u shaqayn jiray sidoo kalena wuxuu u diiday maaragtay in la siiyo ogolaansho ay ku ganacsadaan sidoo kalena ugu dambeyntii 1950kii ayaa waxaa maaragtay lagala noqday jinsiyadii iyo citizenshipkii waxaasoo dhiba marka loo geystay weli ma aysan doonin inay ka guuraan ogow dhulka Ciraaq waxay deganaayeen ilaa waqtigii geeridii nabi Suleymaan kadib oo laga joogo 2600 oo sano kadib yacni waqti saas oo kala kadib waxaa dhacday buu yiri bil kadib waxaa dhacday maaragtay argagixiso toosa iyo qaraxya in lagu qaaday maaragtay yuhuudi Ciraaq deganayd si ay kadibna ay wadankii uga haajireen kadibna waxaa dhacday inay ka haajireen oo bishii koowaad ee 1951 markii qaraxyadii wixii ay bateen oo synagogue meesha ama meelaha iyagoo maaragtay guriga wax ku caabudaan ayaa maaragtay qaraxyo lagu sameeyey wuxuu yiri maaragtay dad baa 3 baa ku dhintay 30 kalena way ku dhaawacantay kadibna waxaa bilaabantay exodus inay ka baxaan iyagoo argagaxsan yuhuudi Ciraaq oo ina aadaan waddanka maaragtay Israa'iil tageen iyagoo maalinkii qaxayay 600 ilaa 700 oo qof macnaha ogaada kadib waxaa dhacday ninkan aabihii iyo wiilkiisa ayaa waxay ku biireen zaaniistii bay ku biireen kadibna waxaa dhacday isagu shaki weyn buu ka qabay macnaha inuu yimaado meesha Israa'iil u tago aduu kadibna waa uu tagay hase yeeshee ninkan hor yaalla buug buu qoray leeyahay true believer waxa weeye zaaniistaha iyo soo noqoshadii ibn Israa'iil wadankii ayuu rumaysnaa laakiin markii dambe wuxuu arkay inay meeshu meel argagixisaa tahay oo iyagiina la soo dhameeyey kolka sheekadan wadanaa kadib waxaa dhacday ninkii dhalinyarada ahaa nin macnaha firfircoon oo maaragtay fikradiista ayuu ahaa wuxuu arkay in yuhuudi lagu dilayo maaragtay ama lagu xasuuqayo ay dilayeen zionismku dilayaan isagoo rumaysnaa macnaha in zionismku ay u taagan yihiin inay waddan u dhisaan inay nabadgelyo sameeyaan waxaasoo dhan buu rumaysnaa inay dalay leeyihiin tagaan laakiin macnaha muusan ogeyn in meeshu wadkoodii yahay ilaahayna siduu sheegay subxaana wa tacaala man yansuruhum suu alcadaabi ay ka jirta meesha oo kuwoodii bani israa'iilka ahaa kuwani waa macnaha carab jews haddaad maqasho waa kuwii runta bani israa'iilka ah yurubiyaanka ma aha ashkanaaziga iyagu waa yurubiyaanka
kolka maaragtay qoraal buu qoray la yiraahdo qoraal baa laga soo xigtay la yiraahdo yuhuudda ciraaq wuxuu sheegay inuu maaragtay kadibna inuu xaqiiqsaday in zayniistayaasha israa'iil jooga ay yihiin kuwa ka dambeeya qaraxyadii iyo wixii dhici jiray kadib isagoo waqtigaa ogeyn ayaa waxaa dhacday qayb kuwa ka mid a zayniista jabhadii qarsooneed ay zayniistka lahaayeen ayaa la qabtay ciraaq baa lagu qabtay kadib markii ciraaq lagu qabtana iyaga ayaa qirtay inay yihiin in israa'iil laga soo diray oo yihiin dadka qaraxyada geysta marka buuggaasaa la qoray waxaasoo dhan baa la sameeyey maaragtay waxaasoo dhan baa la sheegay waxaa kaloo la sheegay in hadduu ilaahay inuu yahay ninka ciraaqiga ah ee maaragtay bani israa'iilka yuhuudda ah ciraaq kasoo qixin jiray ee ra-iisul wasaarihii ciraaq ahaa ee la odhan jiray saciid waxaa la sheegay inuu ahaa british bound ama gacan yare u shaqeeya dowladda ingiriiska soomaaliga jaajuus buu ahaa waxa carabta xukumana badankooda waxaad ogaataan waa dad ingiriisku boqortooyadii britishka keensatay markii dowladdii cusmaaniyiinta la jebiyey kadib 1919 dhammaantoodna waxay fuliyeen danaha danahay fuliyaan wuxuu ahaa in maaragtay bani israa'iilka yuhuudda ahaa ee deganaa dholalka carabta la qaxiyo la baabi'iyo iyagoo israa'iil iyo ingiriiska la shaqaynaya haddii mar kastood maqasho nato iyo ingiriis iyo maraykanna waxaad ogaataa waa israa'iil waana zayniistayaasha macnaha kuwan sheegta marka kuwii hore carabta alcasuu ku jiray kadib ugu dambeyn 1948 waxaa la go'aansaday in wixii meesha deganaa loo gudbiyo waddanka israa'iil la yiraahdo kadibna wuxuu yiri ninkan qoraaga macnaha taasina waxay ahayd dambiye kale oo maaragtay zaniistu ay ka galeen dadkii yuhuudda caadiga ahaa kadibna ninkani buug buu qoray kadib uu dokumentigareeyay aan dhehe maaragtay buuggiisna laga sameeyey sheeka laga sameeyey kadib waxaa kaloo dhacday inuu fadeexad kaloo ku dhacday ninka la oran jiray benguri oo ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey waddanka israa'iil ah ama yuhuudda ah la sheegay siday masaad iyo hagana wuxuu ahaa urur argagixisa oo la dagaalami jiray dowladda ingiriiska 20 sano ay meesha haysatay iyagoo iska dhigay sida xornimadoon oo kale hadda ingiriisku iyagu u shaqaynayay laakiin si waddanka Falastiin ay u qaataan macnaha waxa laga dhigay inay maaragtay xornimadoon saas oo kale yihiin ama ay sida dee ummad walba waddankooda ugu dagaalanto yaa laga dhigay laakiin waddanka iyagaa loo qabtay waana lagu wareejiyey marka buug baa laga qoray 1992 la soo saaray oo laga sheekeynay siday ururada argagixisada ay Falastiinta waxa suuq jireen isla markaana yuhuudda waxa suuq jireen marka waxa dhacday ninkii waa uu tagay bishii koowaad 1952 iyagoo maaragtay taariikhda intaas sano maaragtay 120 kun ee yuhuudda ciraaq ahayd waa kuwii runta ah ay israa'iil tageen carab jews baa la dhahaa macnaha ay meesha tageen waa kuwii carab jews markaad maqasho waa bani israa'iilkii runta ahaa weeye kadibna waxaa la yidhi markay falastiin tageen waa bani israa'iilka waa kuwii bani israa'iilka ogaada markay israa'iil tageen saan idin sheegay israa'iilna waxaa xukuma ashkenazi jews oo nimanka yurubiyaanka ee diinta yuhuudda qaatay geeridii nebiga sallallahu alayhi wasallam 110 sano meelaha kadib oo boqortooyadii khazaariya in badan ka sheekeeyey ka tirsanaa iyagu waa caddaan diinta qaatay ayaa meesha xukuma laakiin kuwii bani israa'iilka ahaa ee yuhuudda bani israa'iilka dhabta ahaa dhammaantood hadda yuhuud baa la dhahaa laakiin kuwan dhulka carabta kasoo guuray waa kuwii bani israa'iilka runta ahaa markay israa'iil tageen waxaa loo dhaqmay sidii inay yihiin second class citizen oo kale ama dabaqada labaad ee muwaadiniinta xataa meelaha qaar falastiiniinta iyagaa ka hooseeya waxaa kaloo dhacday waxay kaloo israa'iil doonaysaa la yidhi inay qabtaan oo ay sameeyeen shaqooyinka xunxun ee ay baneeyeen dadkii falastiiniinta ahaa ee dhulka laga qaxiyey Soomaalida kadib hadda waa dadkani waa dadkii maalqabeynka ahaa ee waadi ciraaq iyo dhulka carabta deganaa ee ganacsiga haystay waxaasoo dhan haystay kulli marka waxaa dhacday marka dowladda ciraaq iyo macnaha yuhuudda ku heshiiyey macnaha yani sidoo kale waxay lumiyeen yuhuudda ciraaq macnaha waxa la wixii hanti iyo maal ay tabcanayeen 2600 oo sano ayay dhulka ku baabi'iyeen kadibna israa'iil baa la geeyey waxay ka noqdeen shaqaale haddii la kuurun yahay qabta shaqooyinka wasaqda say leeyihiin macnaha shaqooyin iska hooseeya adiga ilaa haddana racism wax xasaasa looma hayo waxa kaloo jirtay buug kale laga qoray iyagana maaragtay Ethiopiankii tagay dumarka Ethiopianka iyagana kuwan yuhuudda Ethiopia la yiraahdo falaasha iyaguna markay tageen oo dumarkoodii oo dhan cirbada lagu duray cirbadaasna ay dumarkoodii oo dhan ka dhigtay madhaleys waxaas oo waa maaragtay waxyaabo documentation kuwa falaashuuna ogaada waa kuwii runta Israa'iilka Yaman bani ka tageen sidoo kale yuhuudda Yaman markay meesha tagaan iyagana second class citizen loogu dhaqmo ama dad hooseeya oo saas oo kala markii meesha la geeyey ciqaab baa ku bilaabatay saas loo galay waxayna ahayn kuwa carabta ka soo galay maaragtay yuhuudda carabta ka timid oo kuwii bani Israa'iilka ah 500 kun bay ahaayeen ilaa 9 milyan Arab countries bay dhamaantood maaragtay dawladii rooyay ay maaragtay ka yimaadeen
marka ninkani wuxuu arkay wuxuu isla markiiba wuxuu helay Israa'iilka la sheegaa inaysan waxba kuwii bani Israa'iilka run ku lahayn ay yihiin niman cadaana oo diinta yuhuudda qaatay oo nabadii waxaa midna rabin weligood allahood oo aan doonayn inay cidla la heshiiyaan qorshuhuna yahay inay fidiyaan waddankaas oo ay maaragtay meelo kale sii gaarsiiyaan kadib ninkii Gilaad waa ninkan weeye hadda buug qoray la yiraahdo disillusionist macnaha disillusionist waxa weeye khiyaali buu soo arkay iyo maaragtay dhan dabangaale in meesha Israa'iil state dadkii yuhuudda uusan ahayn inay koox maafiya oo Zionista la dhaho ay meesha qabsadeen kadib ugu dambeyntii ra'iisul wasaarihii markaa yuhuudda ayuu la kulmay oo la odhan jiray Benguri ayuu weydiiyey kadibna ayuu la kulmay kadibna su'aal wuxuu weydiiyey waa maxay sababta aysan Israa'iil u lahayn constitution ama dastuur ayagu leeyihiin ra'iisul wasaarihii ayaa u jawaabay wuxuu yiri haddaan dastuur lahayn kadibna waxaan u baahanaynaa oo dastuurka lagu qorayaa inaan haysano buu yiri xad firsada arrintani waa muhiim si aad u fahanto waxyaabaha hadda taagan Benguri wuxuu yiri constitution haddaan yeelano kadib waa laga maarmaan waa muhiim inuu constitutionka ama maaragtay dastuurka lagu qoro in waddankaasi xad yeesho wuxuu yiri annagana maaragtay xad ma lihin buu yiri xadkanaguna wuxuu yiri waxa weeyaan meesha uu hadba ciidankanagu qabsado soo maaragtaan waayo waxaan Israa'iil weyn la yiraahdo ayay rabaan bariga dhexe Falastiin Lubnaan Ciraaq bariga macnaha ilaa waqooyiga Sacuudiga horaan uga sheekeeyay barnaamij hore ka saddexaad waxaan ogeyn waxa soo kale weeyay kolku wuxuu yiri haddaan dastuur samaysano waxaan u baahanaynaa marka inaan xad samaysano anaguna xad ma lihin oo borderkanagu ama xadkanagu waxa weeye hadba meesha ay ciidankanagu qabsadaan waana sababtaas ay u yeelan waayeen marka ninkii waa u yaabay waa u sii socday kadib waxaa dhacday ninkii macnaha waxaan ka sheekeynaynaa waa Gilaadii weyn waa kii yuhuudiga ahaa ee adduunka ku rooyay yuhuudii bani Israa'iilka ee Ciraaq soo caaray isagoo dhalinyaro oo lagu saray la yiri wadan aynu leenahay baan tegaynaa kadib markuu meesha tegay dagaalkii carabta iyo yuhuudda dhex maray 67dii iyo 73kii buu ka qayb galay kadib intaa kadib markii Israa'iil ama yuhuudda qabsatay Lubnaan 1982 ayaa waxaa dhacday inuu maaragtay ka noqday oo renounce ku sameeyay ama uu dhalashada Israa'iil uu dib uga noqday uu yiri anigu Israa'iil citizen ma kadib wuxuu u guuray magaalada New York marka kadib ayuu sheegay macnaha ninkani buugiisa waan akhriyay liiraa True Believers wuxuu ka sheekeynaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo aydan ugu sheegay oo Alla yiri subhanahu wa ta'ala waxaan ku soo saari doonaa dad ciqaaba ilaa maalinka yawmal qiyaamaha marka kadib wixii oo dhan buu ka sheekeeyay ciqaabta ku socota balaayada ku socota inaysan ka lug bixi karin in lagu dhameeyay waxa kale oo jira wax kale oo la yiraahdo Lafon Affairs Lafon waxa la oran jiray wasiirka arrimaha dibadda yuhuudda kontameeyadii oo maaragtay soo abaabulay weerar argixisada oo lagu qaaday xarumihii Mareykanka sida jaamacadaha Mareykanka iyo meel kasta oo Ameerikaanku ku lahaa Qaahiro ku lahaa oo kadibna waa la qabtay iyagii kadibna caan bay ahayd kontameeyadii iyo sida adduunku sheegeen waxaan argixisada la yiraahdo dhan Israa'iil baa ka dambaysa waa kan hadda intuu macnaha xataa weerarkan maaragtay Australia lagu qaaday shalay ee la yiri saas oo kala in ninka geystay laba nin bay ahaayeen bali ninka geystay mid kamid ah aan idin sheegay in adduunyada ku rooyay oo ciidamada yuhuudda ka kamid ah dadkii khasab soo dagaalamay waa meeshan markuu tagay marka waxa dad badan macnaha saas oo kale kadib qaraxadii waxaas oo dhan iyaga ka dambeeya September 11 baa la iyaga ka dambeeya 77kii London iyaga ka dambeeya waxaana oo dhan waa iyaga kolka basaasinimada iyo waxaana oo dhan macnaha iyaga ayaa ka dambeeya kolka khayray inta waxaan idinku keenay macnaha inaad ogaateen xaqnimada Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo bilmatal in aad suuradan macnaha markuu Alle leeyahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay subhanahu xusuuso macnaha nabiyo ama qof kasta oo muslim akhriyo markii rabbiga uu sheegay reer Israa'iil ku yuhuudoobay macnaha inuu ku soo saari doono dad cadaabi doono ciqaab u geysan doono ilaa maalinka yawmal qiyaamaha oo aysan marnaba ka hoos bixi karin dadkaasi waa dadkan hadda idin sheegay waana yuhuudi khasaar loo jiray ama Ashkenazi Jews hadduu Ilaahay idin rooyaa khayray waxa weeye qabsatay waddanka Falastiin la yiraahdo Ingiriisku qabtay 1917kii 1948 ama 48kiina ku dhawaaqay waddan xoreeyay leeyihiin waa maafiya caadiya waa nimankan galbeedka haysta waa nimankan adduunyada haysta waa nimankan saas oo kala macnaha waxa weeye waa masiibo dadka lagu soo diray kolka nimankanna waa Yajuuj Maajuuj kana waa mid kamid ah waxa weeye waa ku yuhuudiya oo liirdiig ba ku daatay oo 7 ka hor Israa'iil ka yimid oo la kulmo oo loogu talagalay marka
ninkan commentiga macnaha wuxuu yiri macnaha sidaas kale wuxuu yiri Ashkenazi Jews waa kuwan hadda idin sheegay Zionista waa argixis caadiya maaragtay adduunyadii xasaaq ay ku hayaan macnaha wax la soo koobi kara maaha waana maafi caadiga waana waxa Putin haysta macnaha maadaama ay reer galbeedka iyo madaxda galbeedka oo dhan haystaan dagaalka saddexaad ee nuclear war ay doonayaan in la isdhameeyo ay doonayaan cirbadii covid vaccine ay soo saareen oo dhanna ay doonayaan inay ku dhameeyaan dadka xasuuqaan maadaama nabigu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam xadiiska nabiga uu yiri nabi sallallahu alayhi wasallam muslimiinta waxa uu imaan doonta maalin ay yahuuda dhameyn doonaan fiiri nabigu ma dhihin sallallahu alayhi wasallam maalinka bani israa'iil baa la dili doonaa nabigu wuxuu yiri yahuuda la dhameyn doonaa way dadkan diinta yahuuda ay qaateen waa cadaan iyagana yahuuda fiiri Soomaalikan ayda sidii xaq u tahay iyo hadalka xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam sidii isagana noo sheegay marka dadkani waa argixis leeyahay waa new world order waa maafi caadiya hadii waxa weeye adduunka oo dhan macnaha iyaga maanta haysta Soomaalikan meel kasta ay xukumaan carabtan waxa xukuma iyo dunida muslimka badankoodu waa dad iyagu dhaleen ama dad munaafiqiin oo iyaga la shaqeynaya dadkan dad caadi ma aha waa yajuuj iyo majuuj xadiis quduuskii hadda ka hor aan sheegay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala nabiga ku hor doono dad baan soo deyn doonaa cid iska celin karin oo yajuuj iyo majuuj aniguna aan idin sheegay macnaha inay yihiin shiinaha waa fiir waa raac kuwan waa raacan hadda adduunyada haysta waa kuwan Ashkenazi Jews ninkan wuxuu yiri fiir wuxuu yiri maaragtay sida maanta la arkana wuxuu yiri iska cadna maaragtay the only one who can defeat them is God himself macnaha ilaahay kaliya jabin kara xadiiska nabiguna saas ugu yiri fiir dadkan soo maaragtaan macnaha waxana waa fidno hal sheekh oo Soomaaliya ama sheekh kala sheekh Imraan Xuseen kaliya hadda ka hor sheegay 7 sano ka hor in khasaarku ay yihiin yajuuj majuuj sheekh kale oo muslina oo ku sheegaya habarteed bay ka tahay way culimada muslimka oo khaan leeyahay markaad maqasho oo kale khad khaan gan saxaab bay ku aftirsadaan marka iyagii baa qabiiladii yajuuj majuuj ka soo jeeda laakiin waa dad muslina marka dadkani waa yajuuj majuuj waana fidno waa fidnaan caadi ahayn sida fidnada muslimka iyo carabta ugu hayaan ayaa haduu ilaahay idin rooyahay maaragtay uu dajaal ku iman doona dajaal intuuna imanna wax weey mahdiga ka soo horeyn doona mahdiguna muslimku midayn doona firqooyinkan iyo waxan shiica lagu leeyahay iyo saasoo kale iyo firqooyinka kale iyo sunni iyo wahaabi iyo qaadi waxaan oo dhan ayaa mahdigu radiyallahu anhu baabiin doona muslimka ayuu midayn doona kadibna markuu muslimka midayo waad ogtihiin markuu soo baxaba maaragtay nabiga sallallahu alayhi wasallam ciidamo carab iyo ciidamo macnaha ka iman doona Shaam ciidanka Shaam ka iman doona Falastiin oo nabiga sheegay sallallahu alayhi wasallam yahuuda iyo carabta munaafiqiinta ay dalalka muslimka xukunta carab NATO carab Israa'iil NATO kala samaysan doonaan marka mahdiga iyagoo wada jiray weerari doonaan nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam meesha la yiraahdo arlaa bayda dhulkii cadda markay marayaan ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala dhulka la goyn doonaa waana calaamadu rasuulkii noo sheegay macnaha aayad iyo maaragtay cadeyn uu wato mahdigu inuu mahdig yahay kadib mahdigu markuu guuleysto muslimka dhan uu mideeyo haduu ilaahay idin roon yahay oo saasoo kala baad ogtiin kadib mahdigu isagoo jooga masaajidka magaalada Dimashq caasimada Suuriya isagoo jooga xataa nabigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam masaajidka marka uu joogo minaarad cad buu lahaan doonaa waqtigii nabigana uu nabigu xadiiskan sheegay sallallahu alayhi wasallam masaajidkan Umayya la yiraahdo masaajidka magaalada maaragtay Dimashq bariga kiniisad buu ahaa Soomaalida macnaha boqortooyadii Byzantium ama Roomaankii ayaa haysan jirtay kiniisad buu ahaa muslimka ayaa u bedelay masaajid fiir xaqnimada rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiis kale oo saxiix ah Soomaalikan kadib isagoo halka jooga mahdigu oo dajaal albaabku u fadhiyo oo soo weeraray ayaa uu ilaahay subhanahu wa ta'ala nabigiisa marka la soo dejin doonaa xadiiskii dheeraa macnaha kadibna salaad subax ayuu imaan doonaa nabigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam inuu nabigiisa marka qabo maaragtay khamiis ama shaati jaalla asaas oo kale kadibna mahdiga ayaa dhihi doona salaada nigeli kadibna nabigiisa alayhi salaam ayaa mahdiga ku dhihi doona adiga salaadan mar hore lagu adimay oo lagu aqimay tuji mahdiga tujin doona kadibna nabigiisa alayhi salaam marka waagi bariyo albaabku dhihi doona furo albaabku marka la furo dajaal buu arki doona dajaal markuu isaga arko nabigiisa arko ilaa dajaal waa beenaale moogtay dajaal macnaha uu ku shaqaysan jiray masiixi beentu sheegtay nabigiisa waa cayrsan doona kadibna albaabkii lud meel yiraahdo oo Baytul Quds agteeda markuu marayo ayuu nabigiisa ku dili doona ayuu meesha ku dili doona dad waxay yiraahdaan macnaha carafta jirkiisa dili doonta culimadu qaarna waxay yiraahdaan bay arag buu ku dili doona kadibna uu dhalaali doona dajaal saasuna dajaal iyo zaanistu ku dhamaan doona zaanista dajaal markuu nabigiisa dilay kadibna yajuuj majuuj marka ugu xoog badan aniga macnaha aqoontayda waa shiinaha way shiinuhu waqtigaas dajaal waana dagaalkii saacad kadib way ogaadeen dajaal markuu soo baxayo
waayo nabiguna wuxuu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku soo bixi doonaa dajaal isagoo caraysan oo xanaaqsan buu imaan doonaa kolka waxay u egtahay macnaha wuxuu la xanaaqaya waxa weeye muslimkii mahdiga u soo baxay mahdigii baa mideeyey muslimkii dhan intii ka nooleyd baa midowday waa macnaha galbeedkiina waa la jibiyey marka shiinuhuna saasay nebi ciise usoo weerari doonaan iyagoo malaayiina saasoo kale wey macnaha kolka akhyaaray maaragtay intaasaan ii sheegay barnaamijkan la yidhahdo taxanaan maxaadan ogeyn oo lagaa qariyey 3 qaybood oo kala jirta waxaan rajeynaya qaybaha inaad daawataan akhyaaray intaan mar kale kulmi doono waa sayid cabdiraxmaan oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu